qof kasta oo bini'aadam ah waxa uu baalaa inuu jiro qof uu ka helay, qof indhihiisa buuxiyey, qalbigiisa deeqay. Waxaad rabtaa in qofkaasi aad u dhowaato, qalbigiisa kasbato, dareen jacayl aad la wadaagto. Waxaa laga yaabaa inaad garan weyday sidaad qofkaasi uga dhowaan lahayd, muuqaalo badan aad soo daawatay, su'aalo badan aad isweydiisay, ama aad qaaday waddo laakiin aysan hogeynin qofkaasi qalbigiisa xitaa aysan kuu dhoweynin. Waxaa muuqaalkani kula wadaagayaa sida ugu fudud ee qofkaas aad ugu dhowaan karto, qalbigiisa aad u kasban karto. Waa 5 qodob. Haddii sida ay tahay aad u samayso, waxaan hubaa in qofkaasi aad si fudud qalbigiisa ku kasban karto. Qofkaasi ahaado qof aad ka heshay ama qof aad hadda aad jeceshahay oo jacayl idinka dhexeeyo. Dhamayso muuqaalkan ilaa dhammaadka. Hana ilaawin in muuqaalka la garayso. Waxay naga caawinaysaa la garayntaada in muuqaalkani dad badan uu gaaro. Annagana farxad ay noo tahay. Qodobka koowaad waxa uu yahay wax kasta caadi ka dhig. Ha u muujin dareen xad dhaaf ah iyo rabitaan badan si qofkan isku cajab gelinin. Kadibna uusan kugu darin liiska dadka u fadhiya kursiga keedka. Bini'aadamka si dabiici ah u jecel yihiin inay arkaan cid jecel, cid danaysa, cid ka daba ordaysa, cid ay ka maqlaan waxa ay rabaan. Waa sababta marka aad qof ku dhahdo waan ku jecelahay, uu kaga meeraysto inuu ku siiyo jawaabta saxda ah. Hadday diidmo tahay iyo hadday ogolaansho tahay. Kaliya waxa uu rabaa inuu kaa maqlo ereyadaasi waan ku jecelahay, yaa daba cararayso, yaad wacayso. Waxay naftooda ula sheekeen in jecel yahay, sidaasna ay u noolaadaan. Saaxiib si aadan dadkaasi u noqonin. Qofkani ha u muujin dareen xad dhaaf ah, ha ka badbadinin inaad aad u jeceshahay, xitaa ku dhihin marka hore waan ku jecelahay. Qodobka labaad waxa uu yahay isku bar si daahsoon. Adoonan waqti badan wacaynin, codsanaynin inaad kulantaan. Qofkani waxaad iska bari kartaa baraha bulshada haddii aad kala haysaan akoomada iyo nambarada. Way fudud inaad qofkani u soo bandhigto waxa aad tahay, waxa aad qabato, waxaad xiisayso. Waa qasab isaaskaagu daawan doonaa waayo waxaad tahay qof ku cusub. Laakiin halkaasaad ka faa'iidaysan kartaa oo waxaad ku soo bandhigi kartaa waxaad qabato, waxa aad tahay. Qofkani wacma marka qaar la sheekayso, weydii su'aalo muhiim ah oo private ah. Taasi waxay keenaysaa in qofkani ay tusto in qofkani uu danaynayo. Dareenkiisna sida ayaa ku soo jeedin kartaa. Su'aalahan ha noqdaan su'aalo muhiim ah aad qofkani weydiinayso. Su'aalahan ha noqdaan su'aalo muhiim ah oo qofka quseeya. Hadallada kaliya ha quseeyaan. U muuji marka aad wada joogtaan ficilada jacaylka ka turjumo. Waqti wada qaata. Isbalansada. Qofkani balanso. Qofkani ka dhamaysi inaad is aragtaan. U muuji markaasi ficilada jacaylka ka turjumo. Hadallada kaliya ha quseeyaan adig iyo qofkan. Ha uga sheekeynin qofkani qiso hore kugu soo dhacday, qof aad kala tagteen iyo sababahaad u kala tagteen. Waxaasi hadda ma furna, mana ficnin qofkan aad uga sheekayso. Waa caadi in qofkani uu kugu soo hadal qaado, laakiin adiga marna ha uga sheekeynin. Qodobka saddexaad waxa uu yahay hortaa qofna sida ugama helin. Waxaad u sheegtaa qofkan inuu mar la arag yahay oo sida qofna aadan ugu daba dhicin, qofna aadan ugu helin, qofna aadan u xiisaynin. Waxaad u sheegtaa inuu aad uga duwan yahay dadka kale. Jeclaan lahayd in wax badan aad ka ogaato. Qofkan waxa uu kuu yeelanayaa dareen gooni ah. Waxaad u sheegtaa in qofkani cajiib uu yahay, uu ka duwan yahay dadka oo dhan. Waxaad ku dhahdaa waa sababtan kaaga dhex doortay dadka kale, waa sababtaad indhahayga u soo jiidatay. Si baad dadku wax u dheer tahay. Qofkani waxaad ula dhaqantaa in hortiisa sidan aadan qofna uga helin. Waxaad ka soo qaadaa in qofkani uu yahay. Marka hadaladani aad adeegsanayso waa kulamada ugu horeeya, ee ma ahan marka aad bilooyin ama 3 bilood ka soo wareegtin hadalkani aad ku dhahdo. Waa lagu dareemayaa in been ay tahay, because hadaladani waxaa loogu talagalay in la adeegsado. Waa marka qofkaas ku cusub tihiin, aad rabtiin dareenkiisa aad ku soo jiidato. Ha isfashilin, u adeegso qofkani hadalada markaad isbaran rabtaan. Markaad uga sheekeynayso dareenkaaga ku aadan qofkan. Qodobka afraad waxa uu yahay noqo qof naxariis badan. Qof kasta wuu jecel yahay qofka naxariista badan, qofka danqashada leh, qofka agtiisa aan lagu murugoonin. Laakiin marka la murugudo loo soo cararo, la soo waco, lagu dhawaa murugiisnahay, kadib niyadda u dejiyo, murugada farxad ugu bedelo. Qofkaasi qof kasta wuu rabaa, wuu ku hamiya inuu helo. Qofkani aad sidan u samaynayso kulama simayo dadka kale. Tusaale, iska soo qaad adiga. Qofka aad murugada la qiibsanaysid oo qof kugu dhow. oo qof aad ogtahay in murugadan uu farxad kugu bedeli karo ama ugu yaraan uu ka dulqaadi karo. Ilaaha murugada qaada, laakiin uu ka dhib yareyn karaa. Waayo markaad qof uga sheekayso waxa aad dareemayso, waxa ka yaraanaya culayska ku saaran. Qofkani u muuji marka uu kaaga sheekaynayo murugadiisa ama wax ku saabsan oo dhib ah, garab istaag haddii aad awoodo. Waa xilliga uu kuu baahan yahay. Sababta uu kaaga sheekaynayo dhibtiisa, wuxuu ku leeyahay dhegeyso aan kuu baahanahay. Waxaa laga yaabaa haddii gabar ay tahay in u baahan tahay dhegeysi oo kaliya aysan u baahnayn xal. Haddii wiil uu yahayna
uu u baahan yahay dhegeysi uusan xal u baahnayn. Inkastoo aysan fiicnayn in qofka ragga uu u muujiyo inuu murugaysan yahay gabadha. Ka digtoonow taasi, saaxiib isceli is adkee. Waan ogahay marka qaar waa daciifi kartaa, waa murugoon kartaa bini'aadam ayaa tahay, laakiin qarso oo iska dhig qof adag. Laakiin haddii hadda aad murugooto, yaa qof daciifa laguu maleeyo, hadhow yaa kuu soo cararaya. Adigaba daciifa oo murugaysane. Qofkana xitaa markay wax ka qaldan yihiin, waxaad iska dhigtaa inaad ogtahay. Weydii maxaa kaa qaldan maanta? Maxaa kaasi ah? Wajigaaga ma qurux badna? Waxaan dareemayaa murugaysan tahay. Waxaad iska dhigtaa in qofkan aad akhrisan karto xitaa. Hadalladan aad dhahayso qofkani waxay tusaysaa in garasho gaar aad u leedahay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya aan rabo inaan kula wadaago waxa ay tahay ixtiraam weyn u muuji. Ixtiraamku waa furaha lagu furto qalbiyada bini'aadamka. Qofka ku ixtiraama, qofka ixtiraam kuu muujiya wuu kaala qiimo badan yahay qof waliba. Dadka kula mid ma ahaanayo qofkaasi, si buu kaaga duwanaanayaa. Inaad ixtiraam weyn u muujiso qofka aad jeceshahay waxay ku gaarsiinaysaa qalbigiisa. Waxay kaa furaysaa albaabo badan oo dad badan oo ka xirnaa. Ixtiraamka qofkani waxaad ugu muujin kartaa sidaad ula hadlayso. Ixtiraamka waxaad ugu muujin kartaa ficiladaada. Ixtiraamka waxaad ugu muujin kartaa sidaad ula samaynayso. Ixtiraamka waxaad ugu muujin kartaa sidaad u amaanayso. Ixtiraamka waxaad ugu muujin kartaa sidaad ula dhaqmayso. Qofka kaa hela ixtiraam, wanaag, dulqaad, jacayl iyo naxariis, dareen iyo daryeel aan ka badbadis ahayn, waxaad si fudud ku hananaysaa qalbiga qofkaasi. Shantani qodob haddii aad u samayso qofka aad ka heshay ama aad jeceshahay, hubaal waxa inaad hananayso qalbiga qofkaasi adoonan isdhibin, waqti badan aadan ku bixinin. Shantani qodob haddii aad u samayso sida ay tahay, hubaal waxaad hananaysaa qalbiga qofkaasi aad jeceshahay.